jaamacadda eelo ee magaalada boorama ayaa waxay maalinta beriya qaban doontaa munaasabada qalinjabinta dufcadii 11aad ee ka aflaxda jaamacadaasi. munaasabada qalinjabinta jaamacadda eelo oo si ballaaran looga dareemayo magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ayaa ah mid hadal haynteeda leh. jaamacadani ayaa waxa la aasaasay sanadkii 2007 waxaana ka qalinjabiyey ama ka aflaxay kumanaan arday muddadaasi ay jirtay. jaamacadda ayaa wax ka barta arday kala duwan oo isugu jirta kuwa ku nool magaalada boorama iyo arday ka timiday gobolada kale ee Somaliland iyo Soomaaliyaba. waana jaamacadda kaliya ee inta badan ardayda jecel kulliyadaha engineering iyo computer science ay isku haleyn karaan iyadoo ayna meesha ka maqnayn kulliyadaha kale ee ay jaamacaddu bixiso. jaamacaddan ayaa waxay muddooyinkii u dambeysay ay sameysay horumaro dhinaca waxbarashada ah, taasi oo ay suurtageliyeen maamulka iyo macallimiinta jaamacaddaasi oo ah kuwa isugu jira macallimiin dalka u dhalatay iyo kuwa ajaanib kuwaas oo ay kalsooni badan ku qabaan ardayda wax ka barata. jaamacaddaasi keentayna inay horumar ballaaran samayso jaamacaddu. Yuusuf Muuse Ducaale oo kamid ah maamulka sare ee jaamacadda eelo ayaa waxa uu iga waramay munaasabada qalinjabinta jaamacadda eelo iyo arrimo kale. waxana uu yidhi waxaan joognaa jaamacadda eelo. magacaygu waa Yuusuf Muuse Ducaale, waa registrarka jaamacadda eelo ama diiwaan hayaha guud ee jaamacadda eelo. jaamacadda eelo waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn ee gobolka awdal. mar horena gobolka laga furay. taariikhda la furay jaamacaddan ama la aasaasay waxay 2007. arday badanna way ka baxday. 11 baajka hadda qalinjabinaya ayaa 11 ku ah. marka 11 dufcadood ayaa jaamacadda eelo ka baxay. iminkana waxaan ku jiraa diyaargalowgii iyo qabanqaabadii iyo iskudubaridkii waxa weeye qalinjabintii ardayda ka qalinjabinaysa jaamacadda berrito hadduu ilaahay idmo oo ay tahay bisha Ogs 11. meel fiican buu noo marayaa diyaargalowgii. gabagabadii baana ku jiraa. wax walbana waxa weeye sidii loogu talagalay ayay u socdaan. marka jaamacaddu waa jaamacad weyn sidaan soo sheegay. waxay bixisaa waxa weeye kulliyado kala duwan ayay jaamacaddu ka kooban tahay. haddaan wax ka xuso kulliyadaha ugu caansan ee jaamacaddu ay bixiso waxaa ka mid ah kulliyadda computer science, kulliyadda engineeringka, kulliyadda management science, kulliyadda telecommunication engineering, kulliyadda agricultureka, kulliyadda geology, kulliyadda nursingka, kulliyadda public health iyo kulliyadda nutritionka. kulliyadahaas ayaa ugu caansan kulliyadaha ka baxa jaamacadda. waxaa kaloo barbar socda programs dibloomooyina oo iyaguna dhowra. iyagana haddaan wax ka xuso kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah programka la yidhaahdo DIT, programka la yidhaahdo project management, architectural engineering, nutrition iyo programka ingiriiska oo la yidhaahdo ESL, English as a second language. dibloomooyinkana kuwaas ayaa ugu caansan. marka jaamacaddu waa jaamacad sidaa u ballaaran. berritana haddii ilaahay idmo waxaanu gudageli doonaa xafladii qalinjabinta ee baajkii 11aad ee jaamacadda eelo ee ka qalinjabiya. marka sidaan hore u soo xusay maanta waxaanu ku mashquulsannahay oo jaamacaddu ay ku mashquulsan tahay diyaargalowgii iyo qabanqaabadii xafladda weyn ee berrito insha allahu tacaala ka dhici doonta hoolka weyn ee jaamacadda ee qalinjabinta ku yaala waxa weeye kontaroolka koonfureed ee magaalada boorama. marka wax walba sidoodii ay u socdaan insha allahu tacaala. hadallada iyo khudbadahana insha allahu tacaala waxa weeye berritaanu halkaa ka jeedin doonaa. marka intaasoo hordhaca ayaanu la sii wadaagaynaa saxaafadda insha allahu tacaala. Askariya Cabdi Shaafar, Askariya Saxane, telefishinka caalamiga ee Horyaal TV, magaalada Boorama.